بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد بعد ومتاثيل ما حط به علم وما جرى به قلم المعمور والقدر. waxaynu u balansaneen in aynu balhada daraasaadkii runtii aynu ku sameynay israaca Soomaaliga qaybtii saddexaad inaynu halkan aynu ku soo gudbino maanta markaas aynu ku balansaneen waxay ahayd sab oo aynu niri waa beeraley iyo Soomaal oo aynu niri waxa weeyaan xoolo dhaqato halka socdo ay ka ahayd caanaha dadka qaarna u yaqaanaan hilibka oo halkaas aynu tagnay Soomaal waxaanu niri waxa uu la walaaliyay ayay yiraahdaan taariikhda muqaddadaadka ee qoran ilaa hadda la hayo waqtigaas reference-kaasi waxay qorayaan qaar 7 bay qorayaan qaar 8 bay qorayaan ayaa Soomaal la walaalaha ayaan waqtigii hore ka soo bilownay oo aanu niri Sam iyo Ham iyo Yaafid halka Ham markaasi oo ahaa inta uu leeyahay afar nin oo ku mid yahay Kush waxaanu niri Kush ay ka soo wada jeedaan 40 qowmiyadood ee imika afka la isku raahdo kushitika ku wada hadla laakiin si xagga intaynaan tagin ba waxaanu niri Soomaal markaan soo qaadanay minka 7 nin ayuu la walaalaha 7 nin waxa ay kala ahaayeen Jante oo imika la yiraahdo waxa uu degan yahay dalkan la yiraahdo Chad iyo number 2 ga oo Oram ilaa wixii ka horeeyay dawladihii Ifaad iyo adal oo kale ayaa Oram loo jiray laakiin waqtiga Axmed Guri dhintay wixii ka dambeeyay ayaa loo bixiyay yiraahdeen sida uu leeyahay sheegayo Imaam Maqrisi Oromkaasi markaasi laba qaybood buu qaybsamaa waa dadka Soomaalka la walaalaha baan oo Soomaalna sidaynu hore aragnay hiil uu ka soo jeedaa hiilna waxa weeyaan Kushna waa ina Hamna waa ina Nuux marka Oramkaas laba kala baxaa Bareento iyo Boorana ninka saddexaad deegaankiisuna waa caano weyn karaana Ethiopia xagga Kenya ka kala Bareento waxa weyn Ethiopia oo degan tahay Boorana waxay degan tahay iyaduna Kenya ay degan tahay iyaduna macruuf iyo gobolada shisheeye bariga koonfur bari ee Soomaaliya qofka saddexaad waxa la yiraahdaa Dangalahaasi waxa weeyaan ninka imka loo yaqaano Dankili waxaana weeyaan israahaanta xagga language marka ay eegayaan waa kushitika ayuu soo jeedaa waxaanu la walaaliyahay Soomaal ninka afraad ay walaalihiin waxa weeyaan Duuse waxa weeyaan qarnigii saddexaad ilaa qarnigii afraad Ciise Dabadi dalashada Ciise Dabadi tani ma kaalin taaganahay 2023 aynu leenahay inkastoo 20 sano ay ka horeysay halkan oo taariikh qaldan baa ay tahay marka dhinac kale aad ka eegto hadana Duusahaasi waxa weeyaan inanka afraad ee Soomaal la walaalaa waana ninka xeebaha deganaa qarniyadaasi markaan soo sheegnay laga bilaabo xeebaha halka Avaleti loo oran jiray oo imika Seylac la yiraahdo ilaa laga gaarsiiyo Calula dadkiisa u daadsanaa ayuu ahaa Duusa waxa weeyaan imika waxa uu degan yahay East Africa waxa la yiraahdo Tutsi marka dhaqanka Soomaalida oo kale waa inagii dhinaca markii suugaanta eeganay aynu nari aban Tutsiga abbaynu lahayn Soomaalida go'is jirtay waana dadka ay yiraahdaan inta badan Tutsigaasi waxa ay sameeyeen Seylac barbara iyaga ay sameeyay Karin meesh la yiraahdo sameeyeen Xiis iyaga sameeyay Calula Shanaad inanka Shanaad ee waraahay waxa walaalihiin waxa weeyaan Qabadle ama Qibdiglahaasi waxa uu degan yahay isagoo Masar oo sidii aynu soo sheegnay Jantay oo kale intii ay joogtaa waana ninkan aynu imika u naqaano Qibdiga ee faraacidii hore ninka lixaad waxa weeyaan isagoo waa ninkan aynu Soomaaliyeed oo isagoo waa ninkan aynu kala walaal dhiganayn tan kale Daa'uud baa jira markaa oo ka 7